maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxa aad ugu soo badanaya falalka la xiriira dhinaca ammaanka iyadoo booliska Soomaaliya markii ugu horeysay uu faahfaahin ka bixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dilalka iyo qaraxyada maalmihii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ah Muqdisho ka dhacayay halkan oo ah xarunta dambibaarista ee CID ee magaalada Muqdisho waxa warbaahinta kula hadlay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sadiq Aadan Doodisho waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhinaca ammaanka la xiriiray afayeenku waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dhacdooyinkii ammaan ee caasimadda ka dhacay dad loo soo xirxiray doornimo ayaa qof ismiidaamiye ah isku qarxiyay jiirada Macalin Nuur ee gobolka Banaadir una dhow isgoyska X control afgooye qaraxaas ayaa reebay dhimashada hal qof oo shacab ah qofkii nafti haligaha goobta isku qarxiyay iyo dhaawaca 23 qof oo kaleeto oo goobta ka dhawaa xilliga isqarxiyuhu ismiidaamiyuu isqarxinay ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu qasaaraha badiyo ilaahay ayaa qasaaraha inta ku ekeeyay dhimashada hal qof oo shacab ahaa qofkii ismiidaamiyaha ahaa iyo 23 qof oo dhaawacyo kala duwan soo kala gaareen sidaas ilaag maanta waxaan rabnaa in aan ka hadalno kiisas kala duwan oo aan si wadar ah hal mar uga wada hadalno 30 bishii May 2021 ayaa la waayay gabar yar oo lagu magacaabo Nafiso Umar Maxamuud Nafiso Umar Ahmed Abdullaahi ina hooyo Ruqyo Abdulqaadir Nuur 10 jir ahayd kuna dhalatay degmada Marka isla markaana ku nool degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir 30 May ayaa la waayay Nafisa baadigoob ay reerkeedu sameeyeen kadib ayaa la helay meydka Nafisa oo ku jirta digsi yaalay gurigooda dhexdiisa 1 bishii June 2021 abaara 7 iyo bar subaxnimo baarista kiiskaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada CID-da si wada jiraan ay wax uga baariyeen xafiiska xeerlaaninta guud ee qaranka ayaa loo soo qabtay eedeysanayaal la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen kiiskaas baarista oo socoto awgeed waxa gacanta lagu hayaa eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha koowaad eedeysanaha labaad oo ka mid ahaa dadka eedeysanayaasha ahaa isla markaana la aaminsan yahay inay si toos ah falka ugu lug leeyihiin wali waxa socota baaristii iyadana sidaas leeg marka baaristu ay soo dhamaato oo aanu ku wareejino garsoorka maxkamadaha awoodda u leh ayaanu sidaas oo kaleeto idinla wadaagi doonaa halka kiiskaas uu ku dhamaaday laakiin waxaan hadda idin sheegi karnaa in falkii noocaas ah uu dhacay isla markaana loo hayo eedeysanayaasha la rumaysan yahay inay kiiska ku lug leeyihiin sidaas la eg 4 bishii June 2021 ayaa marxuumad lagu magacaabo marxuumad Salaado Faarax Cali ina hooyo Ifraax Usmaan Jaamac 22 jir ahayd oo ku dhalatay Marka isla markaana deganayd degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaan uu dilay saygeedii oo lagu magacaabo Bashiir Cali Jaamac ahaana macallin iskuul oo dhigi jiray iskuulka Hanti Wadaag ee ku yaala degmada Wardhiigley eedeysanaha sayga marxuumad Salaado oo baxsaday oo isku dayay inuu cadaaladda ka baxsado ayaa wali ku raad joogan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan idinla wadaagi doonaa halka kiiska marxuumad Salaadana uu ku dambeeyo iyo gacan ku dhigista eedeysanaha falka geystay hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Muqdisho oo dhawaan martigelinaysa doorashooyinka baarlamaan iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ku soo badanaya dhacdooyinka la xiriira dhinaca ammaanka iyadoo booliska Soomaaliyana uu sheegay in dadaal xoogan ay gelinayaan sidii ammaanka caasimadda loo xaqiijin lahaa Cabbaas Xuseen Muuse 5 Somali TV Muqdisho